waxaa maanta lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee degmada Burco munaasabad balaadhay isla markaasina lagu soo bandhigayay mashaariica dawladda hoose ee degmada Burco hore u soo bandhigtay waxaana mashaariicdaasi kamid ah dhisidda wadooyin cusub iyo dayactirka qaar kamid ah kuwii hore oo laga hirgelinayo gudaha magaalada Burco munaasabadaasi oo lagu kala saxeexanayay heshiiska shirkadaha kala duwan ee qandaraasay wadooyinkaas iyo waxa goobjoog ka ah maamulka gobolka Togdheer maayarka degmada Burco maayarka xigeenka xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco iyo xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco go'aantii munaasabadaas ayaa waxa ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco waxaana faahfaahin ka bixiyay mashaariicdani horumarineed iyo shirkadaha kala duwan ee qandaraasyadana wadooyinkani ku guuleystay ay kamid yihiin Somaliland, Chinese, Home Group, Oriental, Contractation, Relator, Contractors, Groups kaas faraha badan leh oo ay maanta halkan dawladda hoose marti yihiin oo joogaan waxaan maanta heshiis ku kala saxeexanaynaa 12 kiiloomitir wada ah oo magaalada Burco gudaheeda إن شاء الله تعالى يمكن لقيه الجليل وحكلوا كتير طالة الشيخ بشير وحكلوا كتير وجودك عالجوني ماركة دقمة برعم محمد يوسف برادسنا الكاسي هذا الكسو تيدي أيها وعو تفاصيل دير هذا بحية مشاريع دين الدسمياش ودوين كعصوب ودوين عصرية يدي عتركة ودوين هروية اللي قدها مقالة برعو وتيدي هذا كان وحصوبا دقينا كونتراجيو عن بحني aan u soo celinno ama aan wax weyn ugu tarno bilicda magaalada iyo degmadaba oo baahi weyn u qabta in shaqo muuqata laga sameeyo waxaan u soo bandhigaynaa hawshan aan u soo bandhigaynaa hadalhaynta ama dadka inta badan wax qabadka neceb oo jecel cidii meel loo dhiibtaaba inay fashilanto dadka jecel oo in dhaweydba magaalada iyo wadanka waxba la iibinayaa iyo waxba la cunayaa meelaha marfashiyada fadhi ku dirirka dadkaan macnaha buuran lahayn nooca in aanu beenino oo dadka dadweynaha aanu madaxda u nahay aanu tusno hadaanu buur iibino hadaan guri iibino inaanu wax ka wanaagsan ugu qabanayno inaanu tusno ayaan halkan soo bandhignay waxaan diyaaruna hadaan nahay golaha deegaanka degmada Burco anagoo markaa afkoodi ku hadlay wadigoodina inaan la xisaabtamo oo reer Burco ay la xisaabtamaan oo halkaas soo fadhiistaan oo ilaahay imisa dhaqaaleeyda soo galay maxaa noogu qabateen baan diyaaruna waxaan diyaarunahay in hadii aanu khaldano nala saxo ayaan diyaarunahay ma fiicna in anagu aan la yooyootano dadka aan madaxda u nahay la yooyootano ma fiicna dad kuwa naga sareeya hadii nagu khaldama iyaga laftigooda inaan la yooyootana nooma qora laakiin waxa noo qoran horumarka inaanu ka shaqeyno degmada inaanu ka shaqeyno meeshan wuxuu ka soo xagi karno iyo halkaan wuxuu ka soo shaxaadi karno inaanu degmada hore u marino waxaana iska hari doona hadalada gaagaaban baa iska hari doona gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriyo munaasabadaasi ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in horumarinta degmada Burco ay la garab taagan yihiin heel iyo hoob kan maamul gobol ahaan isaguna uu soo jeediyay golayaasha deegaanka ee dalka inay kaga daydaan dawladda hoose ee degmada Burco wax qabadada kala duwan ee u hayso bulshada gobolka Togdheer ku xume iyo hadal la iska yiro iska hari doona ku jirimayno baan u malaynayaa inaynu isxaqxaganee waxa qofku qabanaya uu yiraahdo in laga sugaa loo baahan yahay waxaanu idin ballan qaadaynaa anigoo ku hadlaya magaca gobolka halkana ay golihii deegaanka oo maayirkoogi iyo ku-xigeenkooga ag fadhina aniga iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka waxaanu idin ballan qaadaynaa inaad idinkuna nagula shaqaysaan annaguna aanu ku ilaalino kalana shaqayno golaha deegaanka hawlaha culus ee gacanta inoogu hayaan waxaan ku boorinayaa golayaasha deegaanka ee gobolada dalka inay talaabada golaha deegaanka ee Burco ay qaadaan waxaan ku boorinayaa gobolada dalka inay u tartamaan xagga horumarka مسؤولينta dawladda hoose ee degmada Burco iyo xildhibaanada kamid ah golaha deegaanka ee degmada Burco iyo mas'uuliyiinta shirkadaha qandaraaska qaatay waxay kormeer ku tageen wado casri oo laga hirgelinayo gudaha magaalada Burco waxaana inta ay kormeerkaasi ku jireen warbaahinta la hadlay maayirka xigeenka degmada Burco iyo xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco laamigaasi waa laami casri ah waxa tusaale u ah
ka aynu hor taaganahay imaka noociisa saasa laga dhigayaa ama laamiga Hargeysa iyo u dhaxeeya Berbera ama shirkadii runtii dhistay airportka oo shirkadan aanu siinay kontraaga ah wadadaas Burco 9 kilomitir laga sameeynaya waxaan ugu talagalnay inay soo afjarto ama ay soo gabagabayso dareenkii dadka reer Burco ay ka qabeen horumarka degmadu inuu noqdo sidii la rabay maanta waxaan idin sheegayaa in iyadoo haddii indhihiina ku aragtaan wax qabadkii golaha deegaanku idin muuqdo 12 kilomitir oo wadada maanta la sameeyo oo sanadii ugu casrisanaaye annagoo shirkadda Somaliland China Honor Group oo ka soo qabanay mashaariic fara badan waddanka Somaliland sida madaarka Hargeysa caasimada magaalada Hargeysa dhexdeeda dadka Berbera u dhaxeeya Hargeysa waxa aan aad iyo aad u faraxsanahay anigu aadna ugu mahadcelinahay golaha deegaanka Hargeysa iyo xalee Burco inaan magaaladan u dhashay maanta in badan baan la taamay inaan halkan la imaado qalabka iyo shaqada aan gacanta ku hayno Burcadeedii aan ku dhashay la imaado hal qodob baan anigu digniin marinayaa ama aanu marinayaa imanka wargelin waxaan digniin marinayaa meel kasta oo laamiya oo la dhisayo ama hore u dhisnaayo rebuilding lagu sameeyo ciddii ku soo jeeda ee u dhaxaysa laba sakood dhexdood inay ka soo gurtaan sandaqadaha geerashada xiriiriyada biraha leyrka dhagaxaanta la dhigay imikaba inay ka soo gurtaan laami kasta oo rebuilding lagu sameeyo oo Burco ku wareegsan وخالد بكيلة شبكة عالمية اعتراف نيوز برعا